haddana uu darawalkii igu soo booday oo aniga garbasaartii aan xidhnaa i jiiday uu damcay inuu si cunfiya gaadhigii ii geliyey dee aniguna markaa runtii waan miyir beelay meel aan joogo waan garan waayey rag badan baa taagnaa oo runtii wax walba waxay leeyihiin xadkiisa markuu ka baxo oo dee lagu ixtiraami waayo tii gabadhnimada laygu ixtiraami waayey tii xilka qarannimo laygu ixtiraami waayey ama xasaanadii aan lahaa aan wasiirkayga markaan hortagay aan idhi wasiir dekreetada ila wasiirun baa soo qora oo u geeya warqadda madaxweynaha in maanta aniga laygu idhaahdo wasiirkii adiga reerkiina ee ku matalayay ha ka daba tago warqadda tanna way ii dheer tahaye col baan ka goostay ehelkiyo intaan asxaabta wadaagne ilayn qurbuhu waa cadaawo ciiltire waa ilaahay tusmayso siday ii dooxeen waqti xaadirkan waxaa barbarkayga fadhida ambasador Saamiya oo ah safiirka Somaliland ee dalka Finland u fadhida ambasador waa ku soo dhaweynaya MTV ku soo dhawow muddo dhowr sano ayaad xilkan safiirnimo ee dawladda Somaliland ee Finland u qaabilsantay maxaa cusub oo maanta aniga iyo bulshada aad rabtay inaad nala wadaagto maalintii 16 bisha oo runtii ka dhacay dee fal aad u fool xum oo runtii ilaa aanka qalbigaygu ka soo noqon waayay oo ahaa in darawalkii wasaaradda arrimaha dibadda loo xil saaray inuu barnaamijkan iyo wafdigan iyo wufudan iyo wakiilada uu la shaqeeyo si cunfi ah ila dagaalamay aniga oo dee askartii berbera ii raacday aan iri gaadhiga soo kora si aan xaruntoodii ugu celiyo oo askartii gaadhiga ka tuuray oo ka saaray si maxaa la dhahdaa cunfi ku jiro lugtaydiyo bannaanka taalana albaabkii oo ii furan oo aan rabay markaa inaan soo dego oo aan la hadlo idhaahdo dee waa xil aniga isaarinaan askartii celiyo oo albaabkii xoogii ayaga uga saaray anigana albaabkii lugtaydii xoog ugu dhuftay oo halkaa dhaawac iga soo gaadhay oo lugtuna i barartay oo runtii aan markaan garan waayey dee oo aan naxay shandadeedii is idhi kala deg maxaa la dhahdaa gaadhiga haddana gaadhigii maxaa la dhahdaa shandadii aan qaatay oo bannaankii u soo degay inuu isla darawalkii shandadii xoog intuu iga qaaday gaadhigii ku soo tuuray maxay ahayd albaabkii maxay ahayd gaadhiga haddana geliyey haddana aan dee qayliyaan idhi shandadaydii ha layga qaado si aan naftaydii u badbaadiyo haddana uu darawalkii igu soo booday oo aniga garbasaartii aan xidhnaa i jiiday uu damcay inuu si cunfiya gaadhigii ii geliyey dee aniguna markaa runtii waan miyir beelay meel aan joogo waan garan waayey rag badan baa taagnaa mas-uuliyiin fara badan baa taagnaa wasiiro hore baa taagnaa agaasimayaal baa taagnaa askartii mansuur baa taagnayd askartii kale ila taagnayd wafdigii qaar ka midaba bannaanka taagnaa way arkayey dee askartii markaa dee aniguna waxaa galay mataqaanaa shoog iyo trauma iyo baqdin dee runtiina markii dambe laysoo kaxeeyey hudheelkaygii aan imi dee waxay noqotay dadkii aan waday xataa in sumcadaydii iyo sharaftaydii meel laygaga dhacay oo haddana anigoo dhaawacii qaba haddana casuumaddii wasiiradeena ilaahay sharafta ha siiyey qaar uu ka mid yahay wasiirka maxamed xaaji ee dastuurka xiriirka golayaasha oo runtii ah wasiir yacni dareenka qurba joogga la socda aan ka dalbaday inuu isagu casuumadda wafdiga uu qaabilo maadaama casuumaddii madaxweynaha barnaamijka ku qorneed aan madaxweynihiina lala wadaagin oo dee madaxweynuhuna uu markaa shaqo kale ku maqnaa oo dee maxaa la dhahdaa runtii aad ayadana igu noqotay wax dee qiimihii wafdiga aan waday iyo ujeeddadii aan u nimi iyo maalgashigii aan waddanka u waday inuu ku lumay mataqaanaa khilaaf wasaarado dhex yaalay ama dee dana shakhsi oo aan odhan karo anigu runtii tii anigoo markaa xeerinaya ayaa waxaan ku dadaalay haddana wafdigii inaan haddana aan ambabixiyo wafdiga markaa aan soo dhaweynayay safiirka Finland ee Nairobi keligay baa soo dhaweeyey brotocolna lama soo dirin markuu ambabaxayayna keligay baa ambabixiyey wasaaraduna laba gaari keliya bay igu deeqday wafdiguna wuxuu ka koobnaa 20 qof dee waxaan garan waayey markaa yacni sababta qaladka laygu sameeyey waxaan isiri iska liq xumaanta oo aamus oo dee qarankaaga u dadaal oo qarankaaga dee astur soomaad arag haddana wixii mataqaanaa laa yukallifu llaahu nafsan ilaa wuscaha wixii haddii lagaa badbadiyo waxyaabihii intaa sannadood aan ku shaqaynayey ee laga bilaabo 2017
ilaa maanta oo ah 2022 waxaan ku joogaa waxa weeyaan magacaabis wasiir. dad badani way isweydiiyeen, dhowr goor saxafiyiintu way weydiiyeen oo waxay yiraahdeen sababta lagu magacaabay magacaabis wasiir maxay tahay oo magacaabis ama dekreeto madaxweyne aad u heli weyday. runtii aniga laftigayga ayaa garan waayay, laakiin qiimaha aan ku leeyahay wasaaradda arrimaha dibadda runtii waxaan garan waayay qaabka min 2017 ilaa 2022 anigoo shuruudaha wasiir maxay safiirnimada buuxiyay, anigoo shaqadaydu siday tahay malaa aan maanta qirayo waxa hadaan lagu sheegin wala sheega aan qirayo inaan ahay safiirka kaliya ee xafiiskiisa bilaa budget yahay oo isagu xafiiskiisa qalabaystay kiradiisa bixiya, leerkiisa bixiya, korontadiisa bixiya, wax kastana bixiya, internetkiisana bixiya. haddana intaas oo dhan waxaan u samray waxa weeyaan qarankayga inaan la wadaago dareenka qarankayga. maanta markaan ka soo dego airportka Cigaal International Airport, taxiga iga soo qaada airportka layma soo diro maxaa la dhahdaa gaariga wasaaradda oo de safiir waxaan ku ahay only qoraal, waayo de sida kale waxaan garan waayay cadaawadda iyo dagaalka laygu hayo meeshu uu ka yimid. xafiis kasta oo maanta Somaliland aan tagayana ilaa madaxtooyada hadday dana iga gasho aan israahdo tagna oo de aan soo salaamayo madaxweyne ku-xigeenka ama aan ka qayb galayo waxaan raacaa dhaweeye. waan ku faraxsanahay inaan dhaweeyahayga raaco, waayo anigu waxaan ahay qof muwaadina. Kuwait baan ku dhashay, Kuwait markaan ku dhashayna nolol yani qof soo arkay oo nolol raaxo leh kusoo koray waan ahay. qurbahana anoo jooga yani waxaan anaa isa soo saaray oo magacayga maanta inaan heerkaas soo gaadho. Somaliland anaa isbaray, caaqil ima keenin, reer ima keenin, aqoontaydan ku imi, aqoontaydu shacabkaygu igu bartay, xilkana waxaan ku helay waa aqoontayda. iyo xilal fara badan oo caalamkaas kale ay ii magacaabeen markay arkeen jacaylka aan u qabo Somaliland. laakiin anigu maanta waxaan aan de bulshadayda ugu soo gudbiyay dareenkayga waxa weeyaan de ilaahay wuxuu yiri maxaa la yiraahdaa de qofku yani qawlul haqqi fadila, yani inaad xaqaaga ka hadashid waa fadiilad, waa qasab haddii lagu hadli waayo. أنا مدحوينها وأنا احترامية شعيل فربضنا ونقبة واي وحويان أساسياشي SNM من أنا قديق جيجا ويكوتشرتا أو أضي رضي با سوهل جمي فاميلي جيجي با كقيب قاتي هلجن كي SNM أنا كقيب قاتي أو أنوير بن قلن كيجا يو محل هذا فاميلي جيجو با برين أو أنداونشري هلجن كي لو صومرية قيمها وضن كان وكفر ديو علن كسومالي أنا قيمها وكفر ديو أنا وانقرنيا ومن أقولي علن كيجا أما علن كسومالي إن متقانا هوس لوديجو qof dan shakhsiya wataana inuu aniga mataqaana igu bahdilo wadankayga ama qiimaha aan shacabkayga ku leeyahay lagaga hor imaado runtii anigu ma jecli. maantana waxa igu kalifay manaan jecleen inaan hadlo dadkaygana inaan niyad jabiyo maan jecleen, laakiin waxa igu kalifay waa caburid iyo de maxaa la dhahdaa ciil fara badan oo aan qarsanayay oo runtii wax walba waxay leeyihiin xadkiisa markuu ka baxo oo de lagu ixtiraami waayo, tii gabadhnimada laygu ixtiraami waayey, tii xilka qarannimo laygu ixtiraami waayey ama xasaanadii aan lahaa. maanta kiiskaygu wuxuu yaalaa maxaa la dhahdaa CID-da ama xarunta oo waayo maanta dee anigu dacwadda anaa qaba oo maadaama anigu wasaaradaydii falkii igu dhacay ninkii ii geystay ay shaqo joojintii ay ku ballan qaadeen inay sameynayaan ay sameyn waayeen, tii ahayd in lasoo xidhi kari waayey. isagiina weli shaqadiisii uu wato oo hudheelkii aan deganaa uu joogo. runtiina waxa weeyaan taasi waa dhaliil aan u jeedinayo wasaaradda iyo mas-uuliyiinta wasaaradda uu ugu horeeyo wasiirkayga oo aan filayay in maanta yani dhibkaa igu dhacay in maanta ninkaas ama la xidho ama dee mataqaanaa xeerkii inantu ay lahayd lagu qaado, midnaba laguma qaadin. aniguna ma rabo in arintaydu reernimo ay ku dhammaato ama odayaal iyo la yiraahdo inan baa la dilay, inan baa la sameeyay. laakiin anigu waxaan ahay inantii qaranka ayaan u dhigaya. ta saddexaadna waxa weeyaan maanta runtii dee waxa aad iga sii cadhaysiyey waxay ahayd aniga oo barnaamijkii sameeyey oo doorkii wasaaradaha buuxiyey oo wax walba ku dadaalay ayaa haddana wasiirkii maalgashiga isagoo
waajibkiisii ka seexday ama iman waayey shirkii ama ka soo qaybgeli waayey haddana in email uu u diro finishkii anigu aan la shaqaynayay oo wasiirkayguna uu ku dhex jiro emailka oo runtii aniga laygu eedeynayo oo la leeyahay nama matali karto marka anigu mirkaasi ima qabanayo in aniga wasiiradaydii wadankii aan ka shaqaynayeen anigu samaystay xafiiskan anigu qarashkayga ku baxsaday anigu aan gogladay anigu aan magaca Somaliland Finland oo dhan igu taqaano ya in ayagoo de meeshan waajibkii loo igmaday ee ka bixi waayeen in anigana xafiiskaygii loo qoro cadaankii aan la shaqaynay ama finishkii aan la deganaa la yiraahdo nama matali karto marka anigu qadiyadaydaas waxaan hordhigayaa waxa weeyaan madaxda qaranka Somaliland waxaan hordhigayaa madaxweynaha qaranka Somaliland oo runtii aan rabo in aniga la iga jawaabo sababta maanta aniga aan uga duwanahay wakiilada kale ee lay bartilmaamsaday ee dekreetadeydana loo laalay aakhirkiina aan jawaabta ugu dambeysa aan wasiirkayga markaan hortagay aan idhi wasiir dekreetada ila wasiirun baa soo qora oo u geeya warqadda madaxweynaha in maanta aniga laygu idhaahdo wasiirkii adiga reerkiina ee ku matalayay ha ka daba tago warqadda anigu dee wasiir anigu ma ihi wakiil reer waxaan ahay wakiilkii qaranka Somaliland marka inaan dub u noqdo ama aan raadiyo dee aniga horta waxay igu tahay sharaf dhac marka qofka lama idhaahdo baan odhanaya anigu tag wuxuu ku tago baa la tusaa runtiina taasi waxay tahay dee ereyga af Soomaaliga ee la yiraahdo wuxuu ku tago ayaa qofka la tusaa halkana waxaan rabaa inaan wax yar aan la wadaago dadkayga sooyaalka dhambaalkiyo himiladaydu waa doog dulucda hadalka iyo ujeedkaygu waa aayatiin wacan hal abuurka iyo jacaylkan maanta u hagoogtay saadaashaydu onkod weeye xiimaya dayax weeye nuuraya asaas weeye jacayl hadduusan qaran jirin ama aanan jacayl qabin sidaan ahay qof jeel galay ama qof jees anigoo ka caagan jijleec uma hadleen Somalilandey adna haysaluugine milicso ujeedkaygu waa diinaar sidaan rabo ilaahay baa oge tanna way ii dheer tahay col baan ka goostay ehelkiyo intaan asxaabta wadaagne ileen qurbuhu waa cadaawo ciiltire waa ilaahay tusmayso siday ii dooxeen waramada jacaylkaagu laxawgiyo xanuunka hilowga inaan u liito awga tacabkii aan ku hoobtay iyo halkii aan daymoonayay ogsoonow nasiibku waa adigoo hela dad kuu nugul waa guul iyo bilad aan la helin Somaliland